عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إلهي سبحانه وتعالى geeridu waxa uu ka dhigay shay xaq ah. waxaan ka fahmi karnaa mowduuca aan rabna inaan wax ka tilmaano, taasoo tilmaamaysa cibrana u ah qof un haddii adduun lagu dhaafi lahaa, hadday jiri lahayd axad in xayaata lagu baaqi yeeli lahaa nebi moxamed buu ahaan lahaa sala allahu calayhi wasalam. sidaa darteed baa maalintii ay diintu kaamil noqotay, dacwadii islaamka ay buuxsantay, rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa lagu arkay amaaraad ama calaamaad tilmaamaysa inuu adduunku wadaacinayo. waxaa lagu arkay calaamado tusinaysa inuu rasuulku dadka sagootinayo sala allahu calayhi wasalam. ramadaanadii hore rasuulka sala allahu calayhi wasalam 10 maalmood buu ictikaafi jiray, amaa ramadaankii sanadkii 10aad wuxuu rasuulku ictikaafay ilaa 20 jeer sala allahu calayhi wasalam, ama 20 maalmood. xaj ayuu rasuulku xajiyey lagu magacaabo xajatulwadaac. markaasuu yidhi innii laa adri, aniga ma ogi, lacallii laa alqaakum bacda caamii haada, waxaa dhici karta sanadkan ka ku xiga inaanan idinla kulmin. ma ogi buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam, lacallii laa alqaakum bacda caamii haada bihada almowqif, mowqifkan aan maanta taaganahay ma ogi sanadka xiga inaan istaagi doono. rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa ka soo muuqatay calaamaad. asagoo jamratulcaqaba jooga ayuu yidhi khuduu cannii manaasikakum, waxaad iga qaadataan acmaalaha xajka, waxaad dhici karta inaanan sanadka dambe idinla xajinin. idaa jaa baa soo degtay, idaa jaaءa nasru اllahi wاlfatxu wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin اllahi afwaajan fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu innahu kaana tawaaba. geerida nebigay tilmaamaysaa suuradda, geerida nebiga ayay tilmaamaysaa suuradda lagu magacaabo suuratu اlfatx. rasuulkii allah hadduu yimaado guushii allah, idaa jaaءa nasrullah, furashadii maka ay timaado oo dadkii aad aragta ayagoo diinka ilaahay ayagoo jamaaco iyo koox u soo gelgelaya, ujeeddadaadii waa gudatay, wadiifadaadii way dhammaatay. maacaddaa wixii ka bilowda waxaad u diyaargaroobaysaa la kulanka ilaah subxaanaه wa tacaala. fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu innahu kaana tawaaba. walaalayaal, nebigu waa dhintay sala allahu calayhi wasalam. ilaahayna wuxuu yidhi wamaa muxammadun ilaa rasuul, nebi moxamed ma aha ilaa rasuul maahee wax kale. waa rasuul ka mida rasushii ilaah soo dirayay subxaanaه wa tacaala. wamaa muxammadun ilaa rasuulun qad khalad min qablihi اrusul, hortiisa rusul baa tagtay ee afa in maata aw qutil, hadduu dhinto ama la dilo macribihiinaad u gadoomaysaan, ma macaasidii baad dib ugu laabanaysaan, ma xaqii uu idin sheegay iyo wuxuu idin baray miyaad dib uga tegaysaan? afa in maata aw qutil inqalabtum calaa acqaabikum, cirbihiinni miyaad ku noqonaysaan? qof walba meeshuu ka yimid oo baadii miyaad aadaysaan? salaaddii miyaad dib uga leexanaysaan? masakadii waxyaabihii laydin amraad ka tegaysaan? ma jihaadkii waxyaabihii laydin fara dib uga noqonaysaan? afa in maata aw qutil inqalabtum calaa acqaabikum. ogaada, waman yanqalib calaa caqibayhi falan yadura allaha shay-a. qofkii cirbihiisa u gadooma, nebigaa dhintay darteed diin uga taga, nebigaa dhintay darteed nusrayntii iyo gargaarkii diinta uga taga, ilaah wuxuu ka dhibayaa ma jiro subxaanaه wa tacaala. shaakiriintana ilaahay waa jaasiyaa subxaanaه wa tacaala. safar bilowgeedii sanadkii 11aad rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu aaday qubuurihii ama nimankii uxud meelihii ay ku duugnaayeen. rasuulku waa u duceeyey sala allahu calayhi wasalam shuhadadii ku aasnayd uxud. si fiican buu rasuulku ugu duceeyey sala allahu calayhi wasalam. waxaad mooddaa inuu wadacinayo, uu sagootinayo waxa nool iyo waxa dhintay labadaba. rasuulka sala allahu calayhi wasalam intaa ka bacdi mimbarka ayuu yimid. mimbarkii ayuu ku fadhiistay, wuxuu yidhi anigu waxaan idiin ahay
ceelalyow farad waa idinka horeeya waxaan idiin ahay mid idinka horeeya ceelalyowga waxaa la yidhaahdaa marka xoolaha la rabo in darka la geeyo oo biyaha la soo siiyo qof baa laga diraa ama laba qofood say wax ugu sii diyaariyaan saasoo kalean aniga idiin ahay buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam wa ana shahiidun calaykum dushiinana markhaati baan ku ahay ilaahay baan ku dhaartaye waxaan hadda meesha aan fadhiyo oga jeedaa xawdkaygii buu yidhi sala allahu calayhi wasalam darkii qiyaamaha ee ummadda laga waraabinayey ee kowhar ahaa ayaan ka arkayaa maxalka aan hadda joogo mafaatixdii khasaa'inta arladoo dhan ayaa lay siiyey wallaahi baan ku dhaartaye fakri idinkagama cabsi qabo ma idinkaga baqaya fakri buu dhahay nebiga ama inaad ilaahay u shariig yeeshaan laakiin waxaan idinkaga cabsanayaa in adduunka laydin furo ood u tartantaan sidii dadkii idinka horreeyey ay ugu tartameen oo kale oo laydin halaaga sidii kuwaa loogu halaagay oo kale rasuulka sala allahu calayhi wasalam in badan buu dadka la hadlay waa wacdiyey waana waaniyey habeenkaa dhexdii saqda dhexe marka la gaaray baqiic ayuu haddana aaday wuxuu u dembi dhaaf u weydiiyey ilaahay dadkii meesha ku duugnaa in badan buu ilaahay istikfaar u weydiiyey wuxuu tilmaamay in ayaga la soo haleeli doono loona imaan doono rasuulka sala allahu calayhi wasalam intaa ka bacdi jiradii ayaa bilaabatay xanuunkii baa rasuulka ku bilowday 28 ama 29 bay maraysa bishii safar maalin itnayna ayay ahayd rasuulku wuxuu ka qayb galay janaaso lagu duugayay baqiic nin saxaabada ka mida oo dhintaa meesha lagu aasay wuu ka soo laabtay rasuulku markuu soo socday wuxuu dareemay sudaac iyo madax xanuun wuxuu u soo galay caaishoo madaxa xanuunaya oo odhanaysa waa ra'saah alla madaxa aad ii xanuunaya waa ra'saah rasuulku wuxuu yidhi bal ana waa ra'saah yaa caaisha anaa kaa daran madax xanuunka caaishay waxaa ku bilaabanaya rasuulka xanuunka sala allahu calayhi wasalam waxaa la gudagelayaa xilligii wadaacuu sagootinayay rasuulka adduunka waa ra'saah caaishaa tidhi anaa kaa daran xagga madax xanuunka ayuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam ee caaishay haddaad hortay dhimato waa ku dhaqaya waa ku kafanaya janaasan kugu dukan waana ku aasayaa haddaad hortay dhimato caaishay idhaq waata gebagabadii caaisha markuu rasuulku dhintay ay tidhi low istaqbaltu min amrii mastadbar waxaan gadaal ka xasuustay haddaan horay ka xasuusan lahaa nebiga xaasaskiisaa dhaqi lahaa sala allahu calayhi wasalam laakiin way naxday caaisha dhimashadii nebiga way ilowday dardaarankii rasuulka sala allahu calayhi wasalam inan yar ayay ahayd muslimiintoo dhan baa dahshi ku dhacay wareer baa ku dhacay waan arki doonnaa markuu rasuulku dhintay siday muslimiintu noqdeen iyo mashaakilka dhexdooda markaa asiibay 28 ama 29 bay ahayd maalinta xanuunka rasuulku ku bilaabanayay sala allahu calayhi wasalam asagoo saa u xanuunsan buu dadka dujinayay nebiga masaajidkuu imaanayo jamaacada ayuu dadka salaada ka bixinayey 11 maalmood inta laysku daro geeridiisa iyo xanuunka hayay rasuulka 13 ama 14 maalmood ayay ahayd rasuulka sala allahu calayhi wasalam usbuucii ugu dambeeyey markii la gaaray adduunka u harsanaa xanuunkii baa ku batay nebiga wuxuu gudagalay inuu aswaajtiisa su'aalaya ayna ana haddan ani beri xaggee ahaanaya ayna ana haddan wuxuu ula jeedaa tookadii caaishuu dhararsanayaa sala allahu calayhi wasalam habeenba marka meel la geeyo wuxuu odhanayaa beri waa xaggee ayna ana haddan wuxuu ula jeedaa habeenkii caaisha mar allaala markii habeenkii caaisha la gaaray rasuulku wuxuu isugu yeedhay xaasaskiisii waxuuna ka codsaday bacdamaa dhib haayo oo xanuun haya rasuulka sala allahu calayhi wasalam in wareegga iyo kaltanka ay ka dhaafaan in tookada iyo wareegga ay ka daayaanay ku soo booqdaan guriga caaisha wayna ka oggolaadeen rasuulka waa la soo hogaamiyey guriga caaisha loo soo kaxeeyey 2 nin ayuu dhexda oga jiray waa fadli ibni cabbaas iyo cali bni abi aalib
nebiga madaxiisa casaabad iyo calal baa ku xidhnaa ama maro, lugihiisa dhulka ma xamili karin ee way jiidmaayeen ilaa guriga caaisha la soo geliyey radia allahu tacaala canha. ma socon karo, lugihiisa dhulkay ku jiidmayaan rasuulka. dhinacan fadli ibni cabbaas baa ka taagan oo ka haaya, dhinacaanna cali bni abi aalib, ilaa la keenay guriga caaisha. caaisha radia allahu tacaala canha qudwa, dumarka ayay ku dayasha u tahay. sababta waxay tahay markii rasuulka loo keenay waxay guda gashay qul huwa alla birabilfalaq iyo birabinaas inay intay gacantiisa soo qabato ay ku akhrisay jasadkiisa mariso. xanuun baa haaya, xanuunaa rasuulka haaya sala allahu calayhi wasalam. waa zawjad saalixa ah, kuma fakerayso odayga waa lagaa sixray, ku fakeri mayso naagihii kalaa wax sameeyey. nin shaydaan ahoo saaxiroo sixir fura iyo mid sixir sameeye u tegi mayso. mucaawadateen bay ku akhrisay radia allahu tacaala canha. caaisha wamaa adraakum maa caaisha, maxaa idin ogeysiiye caaisha? dhibaataa lagu samayn rabaa, xoolihiisaa la boobi rabaa, intay ka dhacaysaa odaygii waa sakaraat. may intay qulholla ku akhriso ilaahay u barisa subxaana wa tacaala. caaisha waxay akhrinaysaa suuradihii nebiga uu isku magangelin jiray sala allahu calayhi wasalam. markaasaa jasadkiisa la marina. waa maalmihii xanuunku ku bilaabanayay rasuulka intuusan dhimanin 5 maalmood ka hor. waa maalin arbaco ah oo 5 maalmood ay ka dhiman tahay geeridii rasuulka sala allahu calayhi wasalam. jasadkiisa waxaa ku batay xaraaradii iyo kulaylkii iyo qandhadii. aad buu xanuunku ugu adkaaduu ku mir daboolmay rasuulka. intaa ka bacdi wuxuu yidhi waxaad ii keentaan ood iigu shubtaan 7 wadaan oo xargaha aan laga furin, macnaha aan la nusqaamin oo aabaar shata ah, ceelal kala duwan. waxaan rabaa inaan baxon ummadda la soo hadlo. weli wuxuu rajaynayaa inuu masaajidka aado, weli wuxuu rabaa inuu dadka la hadlo, weli wuxuu rabaa inuu wadaac iyo dardaaranka madambaysa ummadda u dhaafo. 7 wadaan oo xargahoodii aan la furin ayuu nebigu ka codsaday in lagu shubo dushiisa sala allahu calayhi wasalam. xaraaro badan baa haysa, qandho fara badan baa haysa rasuulka sala allahu calayhi wasalam. caaisha waxay tihi waa la keenay, waxaan u dhignay miqdab ama baaf ay leedahay xafsa, tii baa lagu fadhiisiyey rasuulka. waxaana la gudagalay in lagu shubo 7 wadaan ee markaa rasuulku uu codsaday, ilaa markii dambe uu gacantiisa noo ishaaray, uu noo soo tilmaamay xasbukum xasbukum, bis iga dhahoo joojiya. rasuulku wuxuu dareemay khifi iyo fudayd, waxoogaa wuxuu dareemay fudayd iyo waxoogaa inay qandhada ka jabtay. masaajidka ayuu soo galay sala allahu calayhi wasalam. weli ma awoodi kara inuu lugihiisa ku socdo, weli ma awoodi karo rasuulka inuu saani u istaago. sidaa darteed ayaa labadii nin haayaan cimaamad ama maro ayaa madaxa ugu duuban, maradaasoo dasmi ama mudabka subaga oo kale markaa ah. nebiga masaajidka ayuu soo galay sala allahu calayhi wasalam. faxamid allah waatnaa calayh, ilaahay ayuu mahdiyey waana ammaanay. markaasuu yidhi ayuha annaas ilaya, dadow ii imaada, dadow agtayda imaada. ummaddii baa ku soo kala oroday oo rasuulka u timid sala allahu calayhi wasalam. rasuulku wuxuu yidhi allah lacanado yuhuud iyo nasaara, ambiyadoodii qubuurahooday masaajida ka dhigteen. nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu u tilmaamay labadaa qolo fitanta iyo dhibaatada faraha badan ay adduunka ku wadaan. nacaladda ilaahay dushooda ha ahaato. khubuurtii nebiyadii markay ka dhinteen bay masaajida ka dhigteen. rasuulku aad buu uga digayaa, ilaa caaisha ay tiri walowlaa daalik, arrintaa haddaysan jirnayn la ubris, qabrigiisa bannaanka la dhigi lahaa sala allahu calayhi wasalam. laakiin waxaa laga cabsaday inay masaajida ka dhigtaan. rasuulka sala allahu calayhi wasalam naftiisii waa bandhigay maalinta qisaas in laga aarguto. war qof allaala qofkan wax ku sameeyo iga qisaasa buu yidhi sala allahu calayhi wasalam. ummaddii maanta waa la dulmiyey, ummaddii maanta mashaakil baa la gaarsiiyey. axad ka codsanaya oo ka dalbanaya cafinna ma jiro. rasuulka asagoo cadaalad ku maamulay oo si fiican u wanaajiyey, oo mid kastoo daciifa la fadhiistay, mid kastoo maskiina wax la cunay, mid kastoo liitay ummaddu yasayaan kor u soo qaaday, yuu leeyahay yaan wax ka gaaray, yaan wax ka sameeyey. war qofkan dhabarkiisa jeedal ama ul ku dhuftay dhabarkaygii waa kanay ha qisaasto sala allahu calayhi wasalam.
qof allaala qofkaan dhibaato gaarsiiye ha iga aarguto. war qof allaala qofkii aan xoolo ka qaatay ha iga qaato, ha ii sheego. xaaladaasuu rasuulku tilmaamay. aad buu ummadda u wacdiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam. ilaa duhurka la gaaray yuu ummadda la hadlay. waa soo degay oo duhurkuu la tukaday. mimbarkii buu ku laabtay. war yaan xoolo ka qabaa, war yaa amaa xaggayga ka soo jirtaa sala allahu calayhi wasalam. ilaa hoggaamiyaalku ay sidaa noqdaan wallahaan la liibaanayn. ilaa heerkaa la gaaro dhibaato laga bixi maayo. ilaa laysmaleeyo in dadka adduunka jooga khaasatan dadka ugu talagalay ama xaaladoodu ay tahay ee u socda inay dad maamulaan, dhibaatada ay wadaan ilaa ay ka haraan, ilaa ay nebiga ku daydaan sala allahu calayhi wasalam intay kari karaan. dhibka iyo rafaadkaasaa lagu jira. ayagana mid kastoo ka mid ah cirib xumo iyo caaqibo xumo u dambayn doonta haddaysan ka tooba keenin. waa nebi moxamed qofka dhahaya dhabarkayga waa kana ha la qasaasto. waa nebi moxamed qofka dhahaya ninka shilimaad xaggayga ay ka soo mareen ha iga aarguto. maxaa guryo lagu dhistay? xoolihii dadka. maxaa qamri lagu cabayaa? xoolihii dadka. maxaa lagu dalxiisayaa? xoolihii dadka. in ilaahay laga cabsado waa shay muhiim ah. in nebi moxamed lagu daydo waa shay muhiim ah. nin baa istaagoo yidhi 3 dirham baan kugu leeyahay rasuulkii ilaahayow. nin baa istaagay, 3 dirham baa xaggaaga iga soo jirta, fadliyow sii. ninkii qiimaha badnaa buu la hadlay, ha la garaaca ma jirto, xabsi ha loo daxaaba ma jirto, fadli aaway iga gud sala allahu calayhi wasalam. wamaa muxammadun ilaa rasuul qad khalad min qablihi اrusul afa in maata aw qutil inqalabtum calىa acqaabikum inaka mayitun wainahum mayituun. adi waa dhimanaysaa, ayagana way dhimanayaan buu yidhi ilah subxaanaه wa tacaala. wamaa jacalnaa libasharin min qablika اlkhulda afa in mitta fahum اlkhaaliduun. haddaad dhimata ma ayagaa adduunka joogaaya? aduuba alla ku jeclaa oo rabbi ku doortay. in allaala inta makhluuqee rabbi abuuraa lagaa doortay. haddaad dhimata ma ayagaa adduunka joogaaya? adoo dacwada si habsamiya u waday baa dhintee, ayagoo qabiyaalad iyo waxyaabo kale ku wada miyaa waaraaya? adigoo qiimo iyo wanaag alla agtiisa ka leh ayaa dhintee, ma ayagoo dulliyaalaa waaraaya? adiguu ilaahay sara kuu qaadaa dhintee, ma ayagaa joogaaya? adigoo xalaal iyo khayr ku dadaalaa dhintee, ayagoo xaaraan iyo bakti ku dadaalay ma waarayaan? jawaabtu waa maya. afa in mitta fahum اlkhaaliduun. haddaad dhimato ayaga maa waaraya rasuulkii ilaahayow. saa darteed maalintaa rasuulku aad buu ummadda ula hadlay. hadallada uu ku hadlay maalintaa rasuulku waxaa ka mid ahaa, ansaar baan idinkala dardaarmayaa. war nimankan diin bay u halgameen. war reer ansaareed dhibka ka daaya. ansaartu waa dadka ixiga, waa dadka ii soo dhow, waa dadka xiibtadaydii ah. saa darteed ninka dadka ansaarta way dhammaan doonaan. waxay noqon doonaan milixa meesha tacaamku uga jiro, cusbada booska ay tacaamku ugu jirto oo kale. war qof kastoo ummaddayda amar u qabta oo maamul qabtoo wax ku dhibi kara waxna kuwa anfici kara, reer ansaareed dhibka ha ka daayo. warkooda xumaadayna xumaanta ka cafiya, warkooda fiicanna abaalmariya. xilli islaamku uu baaba' yahay, xilli nebi moxamed laga soo raacdeeyey magaalada maka, saxaabadiisa meel ay aadaan ay laayihiin bay albaabada u fureen, gacmaha ayay u fidiyeen, guryahooda ayay siiyeen, xaasaskooday damceen inay u furaan. raggaa rag sahlan ma aha. wاladiina tabawa'u اdaara wاliimaan min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim. waxa u soo hijroodayba jecel yihiin. yuxibuuna man haajara ilayhim walaa yajiduuna fii suduurihim xaajaة mima uutuu wayu'iruuna calىa anfusihim walow kaana bihim khasaasa. haba bahnaadaanee naftooday ka qaadeen, haba bahnaadeene naftooday ka dooreen. nin baa ku jiray marti la siiyey wax allaala wixii طacaamoo yaraa ee ilmaha la casho siin lahaa. habeen baa la beryey, reer ansaar nin ka mida boggoodoo duuban, hooyo iyo aabbii ilmihii ay dhaleen. raggu rag sahlan ma aha. ansaar waa ka dardaarmay nebiga sala allahu calayhi wasalam. ansaar rasuulka dadka waa kala hadlay, war dadkan ixtiraama oo sharfa, war dadkan qiimeeya oo ixtiraama, war dadkan qadariya oo mudnaan fiican siiya. ayagoo nool ayuu nebigu yidhi hijra ii hormartay maahane shaksi ansaaraan ahaan lahaa. maalin baa intay qayliyeen oo xoolo reer muhaajiriinna la siiyey ama reer maka inta xoolo nebiga siiyey ayaan shilin laga siinin reer madiine. reer ansaareed markaasay dheen seefaheena weli dhiigaa ka tifqaya.
nafafyaalkeena iyo owlaaddeenna waxaan ku baabi'inay jihaad sidaa darteed baa maanta xoolo la siiyey dad daraad soo islaamay nebigay gaartay sala allahu calayhi wasalam xafiis buu isugu wacay uu yidhi kaalaya ka soo qaybgala qof imaan karaa ma jira ilaa nin reer ansaara maahane markay isugu yimideen buu nebi moxamed u yimid sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi is-eeg eega ma idinku jiraa qof aan idinka ahayn maya war si fiican isku fiiriya buu yidhi hal wiil baa nagu jiray dhaheed oo gabarteena ay dhashay gabarteenaa dhashay oo nin muhaajar baa ka dhalay ha iska fadhiyo ibnu ukhti lqowm minhum ow min anfusihim ayaguu ka mid yahay iska jooga saa darteed buu rasuulku sala allahu calayhi wasalam la hadlay wuxuu yidhi maxaad iga sheeganaysaan maxay xaaladiina tahay reer madiiney waa isoo gaaray hadalkii xaggiina iga soo gaaray waa maxay war miyaadan raalli ku noqonayn oo miyaan idiin imaanin idinkoo baadi ah oo qabiil ku dagaalamaya miyuusan ilaahay sababtayda idinku soo hanuunin subxaana wa tacaala miyaan idin imaanin idinkoo faqiiro ah miyuusan ilaahay sababtayda idinku taajirinin subxaana wa tacaala idinkoo cadow ah oo gobolkiin gobolka kala cunaaya miyaan idiin imaanin oo ilaahay sababtayda islaax iyo wanaag ma ku helin miya intaa markuu rasuulku dhaho waxay ohan jireen ilaah iyo rasuulkiisaa manni iyo galab leh war hadla buu dhahay nebiga war wax un iga sheegta xataa idhaha adigoo qaxootioo lagu soo celiye baad noo timid waan ku soo dhowaynay xoolaheennii baan ku siinay dhaha afkooda waa laga waayey hadal aan ahayn ilaah iyo rasuulkiisaa manni iyo galab leh rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam miyaadan raalli ku noqonaynin inay dadka geel iyo lo' qaataan idinkana aad nebi moxamed qaadataan sala allahu calayhi wasalam war inaad ani i qaadataan ood guryihiina ila tagtaan dad aan geel iyo lo' dhimanaya siiyey dad aan geel iyo lo' beri laga dhacayo siiyaad u qaylinaysaan maxaa dhacay raalli ku noqon maysaan inaad nebi moxamed qaadataan ood raxladiina la tagtaan rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam dadkoo dhan hadday meel mari lahaayeen iyo waddo ansaarnay wadda mari lahayd waddadii aad marteen baa mari lahaa buu yidhi sala allahu calayhi wasalam war ansaar waa shicaarkayga waa funaanadaha iyo dharka daakhiliga la dhahee intaan la labisanin la gashto ayaad ila mid tihiin dadweynaha kale waa dihaar waa marada bannaanka rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam asagoo aad u tilmaamaya haddii hijro ii hormari lahayn waxaan ahaan lahaa shaksi ansaari ah saa darteed nimankaa buu nebigu ka dardaarmay sala allahu calayhi wasalam waxaa la mid ah in allaala inta diin ilaahay u gargaarta subxaana wa tacaala in allaala inta hadafkoodu inay dacwo u gargaaraan inay tahay ayagana in la ixtiraamo oo la maamuuso oo la weyneeyo oo la qadariyo meeshay ku jirtaa rasuulka maalintaa aad buu kala hadlay nimanka reer ansaara in la wanaajiyo intaa ka bacdi rasuulku wuxuu yidhi addoommada ilaahay ka mid ah ayaa ilaahay khiyaar geliyey mimbarkuu saaran yahay oo wuxuu la hadlayaa dadka waxaa la khiyaar geliyey inuu adduunka qaato iyo quruxda iyo waxyaabaha ay leedahay uu adduunka isaga waaro ka bacdina janno la siiyo iyo inuu haddaba uu doorto waxa ilaahay agtiisa ahaaday fakhtaara maa cinda allah addoonkii wuxuu doortay ilaa agtiisa waxa yaala mar allaala markuu sidaa rasuulku yidhi fabakaa abubakar waa ooyey radia allahu tacaala canhu saxaabadii kale waxay yidhaahdeen odaygu muxuu la ooynayaa haddii ilaahay addoommadiisa ka mida uu khiyaar geliyey in waxa ilaahay agtiisa yaala uu doorto iyo inuu adduun doortuu doorto waxa ilaahay agtiisa yaala ma wax laga ooyaa abubakar wuxuu ahaa faqiih abubakar wuxuu ahaa ninka noogu fahmad badan abubakar wuxuu yidhi fadaynaaka biaabaa'ina wa ummahaatina hooyooyinkeen iyo aabbayaalkeen baan kugu furanaynaa waa gartay addoonka la khiyaar geliyey inuu nebi moxamed yahay waa gartay rasuulku inuu bixi doono sala allahu calayhi wasalam saaxiibkii inuu dhiman doono abubakar maalintaa wixii ka bilowda waxyiga inuu go'i doono barako iyo waxyaabo badan inay baabi'i doonto abubakar maalintaa oohin cajiib badan buu ooyey muxuu la ooynayaa odaygan bay dhaheen way fahmi waayeen laakiin abubakar faqiih buu ahaa abubakar muxuu la ooyn waayey rasuulka intaan mimbarka loo samayn qori baa jiri jiro khudbada ku akhrin jiray geetimireed salkiisa ayuu ku istaagi jiray kaasuu ku khudbayn jiray rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii mimbarka loo sameeyaa qorigii la qaadoo gadaal la dhigay jimcihii dambuu nebigu yimid markaasuu mimbarka ku istaagay khudbada inuu aqriyuu bilaabay nebiga
masaajidka waxaa ka soo baxay oohin tartiib u socota ilaa oohintii ay sii badataad u malaynaysa hal cishaar ah oo tabasidaa oohinteeda aad baa lala yaabay. nebiga waa ka soo degay mimbarka sala allahu calayhi wasalam, qorigii ayuu u yimid, gacanta ayuu saaray mar allaala marka gacanta uusaa u saaray sidii ilmo yar oo la aamusinayo, qorigii wuxuu gudagalay inuu oohinta googooynaayo, inuu iniin samaynayo, ilmo yaroo oohinta dhammaynayo gebagabaynayo kale, ilaa uu sakatuu xasilay. mimbarkuu ku soo laabtay sala allahu calayhi wasalam, wuxuu la ooyey ma taqaanin buu dhahay nebiga. qori waayo waa geed jirideed, timirtaa laga soo gooyey, waa jamaadaad, waa ooyey dikrigii uu maqli jirou la ooyuu dhahay rasuulka sala allahu calayh wasalam. maxaa noqonay? uma qasad quluubuhum, qalbigoodii baa qalalay, fahiya kalxijaara aw ashaddu qaswa, dhagax oo kaluu noqday buu dhahay ilaa subxaana wa tacaala. haddii nala wacdiyo, haddii qof nagu dhex dhinto, haddii diin ilaahay intaasoo dhan ma jirto. waxa oynaya waa qori walaalayaal, waxa oynaya waa geedjirid timireed, waxa oynaya waa jirid. waxa meesha yaala dikrigii uu maqli jiray iyo istaaggii nebiguu ku istaagi jiray ayuu la ooyey. qoriyaa ooyey. abubakar muxuu la ooyn waayey? abubakar waa ninkuu ilaah yidhi id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan, waa saaxiibkii buu ku yidhi ha murgoonin, ina allaha macanaa, ilaahayaa nala jira subxaana wa tacaala. saa darteed abubakar maalintaa fadaynaag, rasuulkii allow intaad naga dhiman lahayd hooyooyinkiin iyo aabbayaalkeen aan kugu furano. hooyaday ha dhimatee aabbay ha dhintee adinoo joog. cumar hooyadii aabbii ha dhintaane adinoo joog. cثmaan hooyadii aabbiyaan kugu furanaynaa. fadaynaak, rasuulkii allow ha dhiman, rasuulkii allow noo joog, rasuulkii allow aan kugu furana aabbayaalkeen iyo hooyooyinkeena. laakiin rabbi baa xadmi ka dhigay, wamaa muxamadun ilaa rasuul qad khalad min qablihi الrusul afa in maata qutila انqalabtum calى acqaabikum afain maata aw qutila انqalabtum calى acqaabikum waman yanqalib calى caqibayhi falan yadura allaha shayئa wasayajzi allahu الshaakiriin. saa darteed buu rabaa inuu hooyadii iyo aabbihii ku furto. wuxuu rabaa labadii dhashay inuu nebi moxamed ku furto salى اllahu calayhi wasalam. annabiyu أwlىa biاlmu'miniina min anfusihim waaswaajuhu ummahaatuhum, nebiga nafafyaalkooda uga awliyeysan. naxrii duuna naxrik, dhuuntaydaa ka sokaysa ayay dhihi jireen saxaabada marka dagaalka lagu jiro. muxuu ula jeedaa? leebka iyo fallaarta dhuuntayda soo dhaafta ha kuu timaada yaa rasuul allah, anoo nool maba dhimanaysid rasuulkii ilaahayow. sidaa darteed naxrii duuna naxrik, waxaan kugu furanayaa dhuuntayda, waxaan kugu furanayaa naxrigayga. sidaa darteed baa saas loo difaaci jiray. rag jaajiray looga cabsan jiray nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam. markay gaaladu arkeen ducfigeena, tabardaradeena, waxay damceen daandaansi iyo maalinba maalinta ka dambaysa suubanaha wax allaala waxay doonaan inay ku sameeyaan. farshaxan gacmeed inay ku sawiraan sala allahu calayhi wasalam, inay dhibaato iyo mashaakil gaarsiiyaan, kartoon inay ka dhigaan rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam. waa wax ummadda maanta joogta laga arkay. waxaa adduunka ka tegey naxrii duuna naxrig dadkii dhahaya, waxaa adduunka ka tegey fadaynaaka biaabaa'ina wa ummahaatina dadkii lahaa. waxaa soo haray ummad rasuul iyo wax la dhaho iyo xaaladoodaba aan kala ogayn. waxaa soo haray ummad daddooda iyo adduunkooda keliya ah. nebiga sala allahu calayhi wasalam war allaala markuu ilaahayna amraya wuxuuna amray inaan dhibka ka dayno, inaan difaacno, inaan wax kastoo wanaaga u samayno. ilaa tansuruuhu faqad nasarahu allah, haddaadan u gargaarin ilaahay baa u gargaaraya subxaanahu wa tacaala. لا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هداد أقرقاري ويسان، هداد استاقي ويسان، هداد أقومي ويسان، هدي سيدي رقان أوكال آد نقوم ويسان. إلهي بوليه سبحانه وتعالى وابا أقرقاري إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. abubakar markuu godka ku jiray nebiga uu la jira sala allahu calayhi wasalam, abubakar waa cabsanayaa, naftiisa uma cabsanaya nebiga ama dhib la gaarsiiyaa buu leeyahay. yaa rasuul allah low axaduhum idaa ta'طa'a ra'sah, mid hadduu madaxa saas u ruxruxo waana arkayaa yaa rasuul allah. uskut ya abaabakar inayn allahu haaliثuhumaa, labaa nahay ilaahay saddex ku ah subxaanahu wa tacaala.
labaa nahay ha cabsanin maa dannuka yaa abaabakar biinayn allahu haaliuhumaa maxaad u malaynaysaa laba ilaahay saddexeeye subxaana wa tacaala yaa rasuulallah mayna arkaan yaa rasuulallah xadkood hadduu hoos firiyo waana arkayaa yaa rasuulallah gadaal bay soo socdaan yaa rasuulallah way nagu soo dhow yihiin godka asagaa ku hormaray inta nebi moxamed bahal qaniini lahaa aniga ha i qaniina macnaheeda inta nebi moxamed dhib gaari lahaa ani ha i gaaro nebi moxamed intuu saa noqon lahaa aniga dhibka ha i gaaro way dhacday hal god ayuu waayey wuxuu ku daboolo ilaa lugtiisa uu saaray nebi moxamed uu ku jiifo dhabtiisa waa la qaniinay abubakar radia allahu canhu kaaga sii daran ma xarakaynaayo wuxuu diidayaa hadduu isdhaqaajiyo xanuunka sunta bahalka inuu nebi moxamed booduu naxo intaasuu diidayaa radia allahu tacaala canhu intaasuu diidaya maxaa meesha lagu haayaa waxaan sheeganayna maxay tahay walaalayaal sidaa darteed baa nebi moxamed mar allaala markii uu dhabtiisa ku jiiftay abubakar la qaniinay ilinta ka timid ama dhididka ka soo daataa nebiga ku dhacay maalak yaa abaabakar maxaa ku dhacay waa lay qaniinay yaa rasuula allah xaaladdu saasay markaa ahaan jirtay abubakar radia allahu tacaala canhu saxaabada dhammaantood habkay u qadariyeen ay u qiimeeyeen hab sidii loogu talagalay buu ahaa laakiin walaalayaal kaalinteennii baa la joogaa diintiisa iyo sunnadiisa ku dhaqmaana laka la'yahay keliya maanta wuxuu samayn jira suu u tukan jira un u tukada intaa keliya haddaan hagaajinna waxbay noqon lahayd saan doonaan u tukanayaa haddaad salaada ibaray miya haddaad waxaa ii samaynaysaa miya jaxdi dood dhibaato fara badan walaalayaal saa darteed rasuulku xanuun baa haaya sala allahu calayhi wasalam 4 maalmood ka hor geeridiisa waa maalin khamiisha wafaadkiisa 4 maalmood ka hor rasuulka xanuunkaa ku sii darnaaday sala allahu calayhi wasalam xanuunku markuu ku batay ayuu yidhi halumo ii keena warqad aan idin qore warqad baan idin qorayaa aadan dhumaynin warqaddaa gadaasheeda nebiga xanuunku bacdamuu ku daran yahay ragga meesha fadhiya cumar ibn khaaab baa ka mid ahaa oo yidhi war rasuulka xanuunkaa ka tan badane ka daaya warqad ha u keenine kitaabka allaana dhex yaaloo nagu filan sunnadiisaana taalee nagu filan saa darteed dhibka ka daaya asaa xanuun haye ha dhibina rasuulkoo warqadda ka dhaafoo ha u keenine sababta waxay tahay xanuunaa nebiga haaya kitaabka rabbi hana kaafiyo qolaa tiri u keena warqadda nebiga hanoo qoree meeshii baa dood dhacday meeshii baa la murmay meeshii baa buuq ka dhacay ilaa nebiga uu yidhi sala allahu calayhi wasalam quumi cani war iga kala dareera agtayda dood kuma bannaana agtayda in lagu doodo ma aha doodda way xun tahay walaalayaal dadaa doodda jeceloo doodda ka faa'iidaystaa ninbaa aayad aqrinaya xadiis sheegaya ku kala lagu garaacayaa saa looma baahna diinta islaamku waa diin aan miraa iyo dood ahayn ilaa mid wanaagsan oo la kala faa'iidaya maahane walaa tujaadiluu ahla alkitaabi ilaa bilatii hiya axsan haddii axsan iyo wanaag aysan ahayn haddii aayad ku garaacay tahay haddii xadiid ku dhufo u yaha walaalayaal ka jooga wiilashii asxaabulkahf mar allaala markii godku ay galeen meeqay ku jireen walabithuu fii kahfihim 300 siniin wasdaaduu 309 sanay godka hurdaayeen buu yidhi ilaah uma bacanaahum liyatasaa'aluu baynahum ilaahay baa soo bixisay isku weydiiyaan qaala qaa'ilun minhum kam labithtum mid baa yidhi mar meeqaan meesha ku jirnay qaaluu labithnaa yowman waa 309 sano walaalayaal maalin buu ka hadlayaa kaasaaba ugu roon kii kalea yidhi aw bacda yowm maalin qaarkeed baaba ku jirnayba maalin qaarkeed baan ku jirnay dood bay noqotay ma u jeedaa murun baa bilowday maxaa faa'iidoo muran laga helaa war haddii dood ay arrintu noqotay muran noqotay naga daaye wax dan noogu jirana geliya waa inaan sidaa noqonaa haddii dood ay nagu bilaabato wax kaloo na anfacaya aan galno wax kaloo ilaahay agtiisaan khayr kaga gaarayna ama dan adduun noo ah oo nafci leh aan samayno labithnaa yowman aw bacda yowm qaaluu rabbukum aclamu bimaa labithtum ilahay baa garna inta aad ku nagaateen waa hadal xaqiiqa ah waa hadal dood lagu afjaro rabbukum aclamu bimaa labithtum maxaa dan noogu jiraa baahi baana haysaa rooti iyo canjeeraan u baahannahay soo maaha fabcahuu axadakum biwariqikum haadihi ila almadiina tan baa dan noogu jirtaa maalin baan ku jirnay kuma jirin nus baan ku jirnay kuma jirin boqol intaan isku dagaali lahayn bal gaajada aan xallina marka hore caloosha ibir naga ah ee intaa mataqaanaa meesha aan hurdayna oo baahidana qabatay axadkeen dira oo waxaad u dirtaan magaalada madiino magaalada u dira oo lacagtaan u dhiiba
mar allaala markuu baxo fabacثuu أxadaكم بwariqiكم hadihi إilى الmadiinة falyandur أyuha أزكى طacاama falyأtiكم brisqi minhu. ha eegoo gaal yuusan wax idinkaga soo gebin. ha eegoo qofka ugu daahirsanay ugu nadiifsan xagga طacaamkaa idinkaga soo gado. ha idinkala yimaado raashin walyatalaطaf walaa yushciranna bikum أxada. ha xiiladaysto si dhuumaalaysi ha u socdo, cidna yuusan idin dareensiinin. waxaan u ballan qaaday guri cirifka jannada ku yaala ninka dooda ka taga buu dhahay nebiga, wain kaana muxiqan haba mutaystee. waad isqabsateen, waad isku dheggan tihiin, adaa xaq leh, dood bay noqotay u sii daa walaal, faraha uga qaad, iska daa, bal meeshuu la tegaya ha la tago, iska daa waxay u taraysa ha u tarto, iska daa waxyaabo fara badan oo waaye adigana rabbiga jannada cirifka jannada guri ku yaalo kuu ballan qaaday rasuulka sala allahu calayhi wasalam. iga kala dhaqaaqa buu yidhi, dood agteeda kuma habboonee. ilaa ibnu cabbaas uu yidhi raziya iyo musiibo dhammaanteed waa wixii kala dhex galay warqadda iyo nebiga sala allahu calayhi wasalam. dooduu markaa ula jeedaa. rasuulka sala allahu calayhi wasalam maalintaa wuu dardaarmo 3 waxyaabood buu ummadda u dardaarmay. yuhuud ha laga saaro ayuu yidhi jasiirada carabta. ikhraaj ciza waa inay muslimiintu yeeshaan. walilaahi alcizaةu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun. munaafiqiinta ma garanayaan, ma oga. waa in wufuudda la socodsiiyo waxyaabahooda, arrimooyinka ay markaa wadaan waa inaan dhibaato la gaarsiin suu nebigu u samayn jiray sala allahu calayhi wasalam. raabigii xadiiska wuxuu yidhi tii 3aad waan iloobay, waan hilmaamay, laakiin waxaan u malaynayaa jeeshkii usaama ee markay bixi rabeen nebi moxamed uu xanuunsaday u istaageen in la fuliyo la socodsiiyo. waxaa suuragal ah ayaa la yidhi rasuulku inuu ula jeedo alictisaam, in la qabsado kitaabka iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam. waxaa xaqiiqaa inay tahay asalaah wamaa malakat aymaanukum, laakiin tii 3aad markaa wuu iloobay. nebiga sala allahu calayhi wasalam maalintaa ummadda salaada asagaa dujinaayey. maalintaa geeridiisa ay nebiga 4 maalmood ka dhiman tahay ee khamiisaad, wuxuu ummadda dujiyey salaadii maqribka ah. wuxuu ku aqriyey wاlmursalaati curfaa falcaasifaati casfaa. gabar jaar la ahayd masaajidka waxay tidhi waa khiraa'adii igu dambaysay oo aan nebi moxamed ka maqlo sala اllahu calayhi wasalam. maalintaa ka bacdi dadka ma tujinin. wاlmursalaati curfan waxay ahayd nebiga aqrin uu aqriyo masaajidka uu ka aqriyo tii ugu dambaysay gabar saxaabiyad ah. wاlmursalaati curfan falcaasifaati casfaa. way rabi lahaayeen qur-aanka inuu saa ugu sii aqriyo, laakiin qadahii qadarka ilaaha diiday subxaana wa tacaala. inaka mayitun wainahum mayituun. waad dhimanaysaa, iikuna way dhimanayaan. rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii maqribka uu dujiyey, cishaa'iga xanuunkaa ku sii batay sala allahu calayhi wasalam. waxaa ku sii batay marabka iyo faqalka iyo culayska, heer uu kari waayey inuu masaajidka soo aado sala allahu calayhi wasalam. saxaabadu way sugayaan, laakiin masaajidkaa lagu sugayaa rasuulka. xanuunaa gurigiisa ku haaya sala allahu calayhi wasalam. xilligii salaada iyo wakhtigeedii taymkeedii markii la gaaray, yaa caaisha asalla annaas, dadkii ma tukadeen caaisho? waa fikirayaa rasuulka sal alla alayh wasalam. salaadaa ku taagan, dhakhtarkaana ku taagan, horjoogsiga ilaahay baa ku taagan, saaxirada roolaha iyo ka dhahaa dadkaan daaweynaa hortiisaan taagannahay, waysaqaadkaa ku taagan, kaniinigaa nagu taagan. asalla annaas, dadkii ma tukadeen? laa yantadiruunak, waa ku sugayaan rasuulkii ilaahayow. baafka biyo igu shub buu dhahay nebiga. baafkaa biyo loogu shubay, madaxuu ku shubtay rasuulka. wuxuu damcay inuu masaajidka soo aado. wuxuu marayaa gebagebo, 2 maalmood ama 3 maalmood baa ka dhiman geeridiisa. masaajidkuu rabaa inuu aado. caaisha waxay tihi waa dhaqaaqay nebiga, tallaabuu qaaday. tii labaad intuusa qaadin istaaggiisuu ka dhacay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh. uu miir daboolmay. rasuulka miirkaa ka tegey, waa dhacay. masaajidkuu u socdaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh. waa nebi hidaaya, waa nebi naxariis badan. nebiga cabbaar buu suuxsanaa, eeddawuu soo kala qaaday. hadalka u horeeya ee dadka uu ku yidhi ama caaisho uu ku yidhi waxay ahayd dadka ma tukadeen caaisho? cabbaar buu suuxsanaa, weli salaada ma hilmaamin sala allahu calayhi wasalam. salaada casir haddaan gadaal ka tukada ka waran, haddaan dukaan gadaya ka waran, waa su'aalaha dadkay weydiinayaan.
ka warna haddaan shaqadayda ku jiro laba salaad isku jamciyo waa miday weydiinayaan. istaaguu ka dhaca sala allahu calayhi wasalam, istaaggiisii sarajooggiisuu ka dhacaya. markuu soo kaco wuxuu leeyahay dadkii salaada ma tukadeen, laa yantadiruunak, hum yantadiruunak, adaa lagu sugaa rasuulka ilaahayow. isii biyuhuu ku weyse qaadana waa dhaqaaqaya, tallaabuu qaadaa ta kala makari kara inuu kor u qaado waa dhacaa sala allahu calayhi wasalam. xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwusطaa waquumuu lilaahi qaanitiin. ilaa salaada heerkaas aan ka gaarnay inuusan ilaahay noo naxariisanayn, ilaa salaada sidaa habkaa aan u isticmaalnay aan ka bedelno oo dadkaas ay u isticmaaleen, nebigaas uu isticmaalay loo isticmaalo. salaadeena xanaajirta iyo karbaha ma dhaafayso. salaadeena tii ilaahay rafacaya mee waa tii laysku soo celin lahaa. salaada habkaana loogu talagalay. weligaa intaad xanuunsatay mahallay weyse qaada ma tiri? waa maya. laakiin waa tiri dhiig halayga soo qaado. weligaa intaad xanuunsatay ma dhahday qiblada halay qaabila aan tukadee? waa maya. laakiin waa tiri nin buka boqola u talisay ma loo tegey? faajiradii gabadhii kutubka fiirinaysay xaafid hebel deganayd. weligaa in allaale intaad xanuunsatay adoo cisbitaal jiifa ma weydiisay ninka meesha jooga qiblada aaway xaggee loo tukanayaa? xaalad yaa badan walaalayaal. nebiga sala allahu calayhi wasalam 3 mar buu saa noqday oo mar walba uu biyaha isticmaalo isku shubo uu damca inuu baxo istaaggiisa uu ka dhacaya sala allahu calayhi wasalam. ilaa markii dambe rasuulku uu yidhi muruu abaabakar falyusalli binnaas, abuubakar amra dadka salaada ha dujiyo. ma bixi kara maanta, culayskaa ka batay sala allahu calayhi wasalam. hadday ani isugayaan abuubakar imaam ha noqdo maanta. caaisha waxay tihi yaa rasuula allah, abuubakar waa rajul raqiiqa, waa nin calool jilcan, waa nin qur'aanka markuu akrinayo halaba caynaa, indhihiisaa ka qaalib noqonaya. fabaka abuubakar waa oyna, ma maqal siin karo dadka salaada tukanaya qiraa'ada. cumaraa kakakani, cumaraa qaylinaya, cumar jahwari waa cod dheer yahay. rasuulka allow cumar amar yay ka diidaysaa mataqaanaa? waa aabbaheed radia allahu tacaala canha, hogaamintay u diidaysaa. dhiig baa loo daadinayaa, hantee baa loo hurayaa, wax kastaa loo bixinayaa. laaday tiri ka daa yaa rasuula allah, waa raqiiq. abubakar wuu jilcan yahay. abubakar nin aad u calool jilcan waaye. abubakar waa nin raqiiqoo dadka aan maqalsiin karin qiraa'ada. islaamku markuu bidaaye ahaa, abubakar radia allahu tacaala canhu intuu ku noolaan waayey magaalada yuu isaga baxay baa la yidhi maka. waa inta maka la joogay. nin baa ka hor yimid oo yidhi xaggeed u socotaa? ilaahay baan saan doona u caabudi waaye, qoomkayga way dhibeen waa iska baxayaa. war adoo kale buu yidhi lama ceriyo ma baxe soo noqo. intuu xaramka dul istaagay buu dhahay anaa magangeliye kafaaladeeduu ku jooga. abubakar nin taaban karaayo ma laha. waayahe waa inuu gurigiisa ilaahay isaga caabudaa. abubakar suusaaw ahaa uu gurigiisii isaga caabudaayey. bannaanka uu lahaabuu wax yar ku samaystay waab ah, meeshaasuu ku tukanayey. abubakar wuxuu ahaa nin raqiiqa sida gabadhiisa tilmaamayso. waa oynayaa markuu qur'aanka akrinaayo. dumarka iyo ciyaalka way u soo aruuri jireen, meeshaasay imaanayeen. ilaa gaaladu ay cabsatay inuu ka fidneeyaba, inuu ka fidneeyo. aawa ninkii kafiilka ka ahaa? waa hebel, waa la soo qabtay. laba soo gal baa la yidhi inaad ka celiso, waayo ballanteen waxayd inuu gurigiisa ku caabudo ilaahiisa. bannaankuu u soo baxay. ciyaalkii iyo dumarkuu naga fidnaynaa. in kafaalada aad kala laabato iyo inuu gurigiisa galo oo ciidan qofna u jeedo uu rabbigii caabudo. ibnu daqiin wuu soo cararay, abubakar buu u yimid. markaasuu dha abubakarow dhibkaasa ay haysta aniga, qoomkaagaa cadaadis iga haaya, gurigaaga ilaahay ku caabud ama kafaaladeedaan kaala laabanaya. laala laaba buu yidhi kafaaladaada, waxaan ku joogayaa ilaahay kafiilnimadiisa subxaana wa tacaala. naqsa buu dhahay orod, ma ilaahay caabud iyo qur'aan ha aqrin iyo gurigaaga la dhuumo, waxaan aqbalaya ma aha. waxay doonaanna ha sameeyaan. intaad i ijaarisay oo aad i korisood kafiil iga noqotayna waad ku mahadsan tahay, bax buu yidhi radia allahu tacaala canhu. abubakar sidiisaba waa ahaa. abubakar wuu ku soo baxay xaaladda. abubakar kaastan markuu tukanaayo, markuu salaad galo weligii meel ma milicsan radia allahu tacaala canhu. waa markuu tukanaayo ilaa maalin inta nebi moxamed soo daahay, masaajidka uu gadaal ka yimid uu safka soo galay. dadku waxay guda galeen inay sacabka garaacayaan. ilaa abubakar ma milicsanaayo, si kaloo lagu soo jeediyaa la waayey. ilaahay mar hadduu qaabilo abubakar basay ahaan jirtay, lama soo celin jirin, gadaal looma soo celin jirin. ilaahay subxaana wa tacaala ayaa la weynaa. maadadaa nala weyn,
adduunkaa nala weyn, carruurtaa nala weyn, xaasiskaa nala weyn, ilaahayaa la weynaan jiray subxaana wa tacaala. allaahu akbar oo run ah ayuu abubakar la istaagi jiray ilaahay hortiisa. allaahu akbar oo been aan la hor istaagnaa ilaa subxaana wa tacaala. xaqiiqda allaahu akbar markaan dhahno hadday sheeye kale kula weynaadaan ka warrama. abubakar heer masaajidka laga wada saabciye maahane si kale loo soo jeedin waayey. wa kaana laa yaltafid, weligii ma milicsan jirin. sidaa darteed abubakar ilaahay subxaana wa tacaala wanaagyo fara badan buu siiyey. marka saasuu ahaan jiray. caaisha waxay tidhi aabbahay ka celi oo abubakar waa nin jilicsane, cumar amar asaga dadka ha hogaamiye. rasuulku wuxuu yidhi abubakar amra dadka ha dujiye. xabsay tiri la hadal nebiga. xabsaa la hadashay ilaa nebiga uu yidhi dhagartaad wadataan waa sawaaxibu yuusuf. gabdhihii gacmaha iska jarjaraayey dhagartii waxyaabihii ay wateen oo kale. war abubakar amra asaga dadka salaada ha dujiye. abubakar baa salaada dujinayey. jaabir ibni cabdillaah 3 maalmood markay ka dhiman tahay geerida nebiga wuxuu yidhi, rasuulku wuxuu yidhi war qof idinka mid ah yuusan dhimanin ilaa inuu danni fiican ilaahay ka haysta maahane subxaana wa tacaala. axad yuusan dhiman ilaa asoo xusni fiican iyo danni wanaagsan ilaahay ka haysta maahane. aawe dadkii danniga fiican lahaa, aawa dadkii ilaahay daninayay. faأmaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi fayaquulu haaumu qra'uu kitaabiyah inii danantu annii mulaaqin xisaabiya. waa daninayey, waa danni fiican suu u daniyey inuu fisqi aadou khamri cabiyu kalaab ka tunto xaaraan cunuu ribo cunay ma dhin. ilaah baa danni fiican ka qabaa. balse intuu alla caabudo diin ku dadaalo, salaad hagaajiyo, xalaal ku dadaalo, ilaah baa danni fiican ka qabaa. innii danantu annii mulaaqin xisaabiya. axad yuusan dhiman ilaa danni fiican inuu ilaahay ka qabo maahane. hal maalin ama 2 maalin baa ka dhiman geerida nebiga sala allahu calayhi wasalam. waa maalin sabti ah ama maalin axad ah. rasuulku khafiif ayuu helay. haddana habeenkaa markuu soo bixi waayey 2 nin ayuu haddana u soo baxay salaad duhur ayadoo ay tahay. waa maalin aba 2 maalmin ayadoo ay ka dhiman tahay salaadii duhur. abuubakarna suu maalintaa u bilaabuu dadka dujinaayey. abubakar ayaa hogaaminaya oo salaadii tukanaya. mar allaala markii uu dareemay inuu nebigu soo galay sala allahu calayhi wasalam ama uu arkayba, gadaal ayuu damcay inuu u soo baxo abubakar. laakiin nebiga gacanta wuu ishaaray sala allahu calayhi wasalam inuu salaada dhammaystiro. 2dii ninna wuxuu amray abubakar in dhinaciisa la fadhiisiiyo. abubakar bidixdiisa ifadhiisiya buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam. fadhi buu nebigu ku fadhiistay oo ku tukanayey. abubakar istaag buu ku tukanayey. dadkii gadaalna way tukanayeen. abubakar wuxuu ku dayanayay salaada nebiga, dadkuna waxay ku dayanayeen salaada abubakar. abubakar codkuu tabliiq ahaa waa gaarsiinayey dadka inay nebigu uu xanuunsan yahay sala allahu calayhi wasalam. hal maalin markay ka dhiman tahay geerida nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu xoreeyey ghulaamkiisii. waa xoreeyey rasuulka. 6 diinaar buu haystay ama 7. wuu sadaqeeyey sala allahu calayhi wasalam. hubkii uu haystay muslimiintu u hibeeyey sala allahu calayhi wasalam. 30 koombo oo shaciir ah ayaa camburbireedkiisii loo haystay sala allahu calayhi wasalam. wuu sadaqeeyey 7dii 6dii. maqribkii markuu soo dhowaaday faynuustii baa gaaska ka dhammaaday. waa guriga nebiga sala allahu calayhi wasalam. rasuulka gurigiisii waa habeenadii ugu dambeeyey. faynuustii gaas ma lahaa. caaisha gabar reer ansaareed bay u dhiibtay. si codka subagaa la isticmaali jiray oo gaas ahaan loo isticmaali jiray si faynuusta loogugu soo shubo. walalaakhiratu khayru laka min aluulaa. aakhira kaaga fiican adduunkan nebigaa lagu yidhi sala allahu calayhi wasalam. xaalku markuu meeshaa maraya aakhir yoom xayaat baa la gaaray. waa maalintii ugu dambaysay. nebiga dib dambaba loo arki doona sala allahu calayhi wasalam ilaa maalinta qiyaamaha. waa maalintii xayaatadiisii ugu dambaysay. anas ibni maalik wuxuu yidhi muslimiinta ayagoo tukanaya salaad subxeed. waa maalintuu dhimanaya nebiga. abuubakarna dadka uu dujinayo wax soo kadiye ma jirin ilaa shubaakada nebiga guriga caaisha. daahii saarnaa buu kor u qaaday sala allahu calayhi wasalam. daahii ayuu kor u qaaday. fanadara ilayhim, waa soo eegay ayagoo safafyaasha ku jira muslimiinta. allahu akbar. way tukanayaan. abubakar baa hogaaminaya. wuu dareemay hadduu ka dhintay inay ishogaamin karaan. waa dareemay hadduu iska baxo in ay sidii loogu talagalay uu u tababaray ay wax u wadaan.
laakiin mar allaala markii ay arkeen rasuulku markuu arkay tabasam wadaxik wuu qoslay wuuna dhoola caddeeyey nebiga intaasuu xanuunsan yahay intaasoo xanuunka uu haaya haddana wejigiisii waa bidhaamayaa sala allahu calayhi wasalam cibaaduu ku dadaalay diin buu ku dadaalay rabbi subxaana wa tacaala amarkiisa fulinteeda xanuun yar markuuna qabto waa aragna saa noqonayna walaalayaal sida la noqonayo ila marka caafimaadka la qabaa la tuntay kalaab baa la aaday khamri baa la cabay gabdhaa lala ciyaaro jees lala ciyaaray jasad noocaasa see ilahay u xafida subxaana wa tacaala jasad noocaasa see ilaahay dhibaatay waxyaaba uga badbaadina markaasaa xanuun yar markuuna qabto anagoo dhan waxaa noqonaya tagayur doorsoon nebiga wejigiisa waxaad u malaysaa bay dhaheen saxaabada maalinta qidca dahab ah gobol dahab ah masxafka warqadiisoo kale suu u bidhaamayo u iftiimaya sala allahu calayhi wasalam suu u iftiimaayo suu u bidhaamaayo suu u dhalaalaayo gabdhihii saxaabada gobol ka mid ah ayaa waxay gaareen boqol sano hal iligna kama dhicin baa la yidhi markii la weydiiyey bay dhaheen markaan caafimaadka qabnaan cibaadada ku dadaalnay oo xoogga lahayn markaan daciifna alla nagu dadaalay subxaana wa tacaala xuduudda allaan ilaalinay markaasuu allana ilaaliyey subxaana wa tacaala waxyaaba noocaas oo kale ilka qaad lagu cunayaala maanta weligeed aan qulwalle iyo faataxa lagu akrinin sigaar iyo khamri iyo qaad iyo beensheegid iyo qabiilkaasaan iyo qabiil hebel boqol aan kadinin sida loo dhahay baaba'een ayagoo dhan ilaah laga cabsado subxaana wa tacaala khayrka iyo wanaaggana waxaa lagu gaaraa waa ilaahay diintiisa mar allaala markuu rasuulku saa usoo fiiriyey wuu qoslay abubakar dib buu u soo dhaxay laakiin si uu safka u soo gaaro wuxuu u malaynaya inuu nebigu soo baxayo sala allahu calayhi wasalam inuu salaada soo aadayo ayuu u malaynaya laakiin nebiga gacantuu u ishaaray salaada dhammaystir aad bay u jeclaayeen inuu u soo baxo aaday u rabeen nebi moxamed inuu u yimaado aad iyo aad ayay u rabeen laakiin nebigu wuxuu dhahay dhammaystir oo salaada sideeda markaa u sii wad wuxuu sii daayey rasuulka satrigii iyo asturkii iyo qolqolkii uu kor markaa u haayey maalintaa waxay ka dambaysay salaad kaleba kuma soo gaarin sala allahu calayhi wasalam salaadaa subxeed ka bacdi salaad kaleba ma soo gaarin nebiga salaad kaleba maba la gaarinba waxay ahayd aakhir iyo gebagebo iyo wakhtigiisii salaad kale markaa lama gaarin mar allaala markay duxadii soo kor noqotay mar allaala markii wakhtigii barqada la gaaray faadimuu u yeeray rasuulka sala allahu calayhi wasalam dhegtuu wax ugu sheegay fabakat waa oysay dhegta kaloo haddana wax ugu sheegay fadaxikat way qosashay caaishaati rasuulku muxuu kuu sheegay way diiday inay sheegto laakiin dib dambay ka sheegto waxay tii rasuulku wuxuu yidhi markii koowaad xanuunka haaya inuu ku bixi doono uusan noolaanayn rasuulka sal alla calah wasalam intaa ka bacdi waan ooyey bay tiri markii labaadna wuxuu yidhi ehelkayga qofka ugu horeey ee iga daba imaan doona waa adiga fadaxikat la kulanka ilaahay bay jeceshahay subxaana wa tacaala man axaba liqaa'a allah axab allah liqaa'a waa dhimanaysaabay ku faraxday ku qasashay 6 bil bay ka dambaysay sala allahu calayhi wasalam riwaayad kale waxay leedahay wuxuu yidhi waxaad noqonaysaa saydada ama boqoradda ama waxaad madax u noqonaysaa dumarka ahlujannaha radia allahu tacaala canha faadima radia allahu tacaala canha saasuu rasuulku labadaa mar wax ugu sheegay rasuulka sala allahu calayhi wasalam faadima markuu u yeedhay xaaladahaasuu markaa u tilmaamay markay istaagtay bay aragtay aabbaheed xanuunka haaya waa karbaabaa ayay tiri alla aabbay xanuun badan baa haaya xanuuna rasuulka ku batay sala allahu calayh wasalam ixtidaarkii gebagabadii baa soo dhow waa karbaabaa aabbahay waa la kurbeeyey nebiga waa u jawaabay laysa calaa abiiki bacda alyowm kurba aabbahaa maanta wixii ka dambay kurba korkiisa ma ah waaba iska dhimanaa buu dhahay sala allahu calayh wasalam maba joogayba daartan dhibka badan oo naxdinta badan oo walbahaarka badan oo cayda badan oo dulmiga badan oo xaaraanta badan waaba iska dhimanaa laysa calaa abiiki aabbahaa dushiisa kurba ma aha bacda alyowm maanta wixii ka dambeey haddaa dhinta maxaa kurboodaaba faadima way qaylinaysaa faadima xanuunka aabbaheed haaya ayaa xanuunjiyey aabbahay waa la kurbeeyey intaa wixii ka dambeeyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaabaa la yidhi intaa wixii ka dambaysay rasuulka sala allahu calayhi wasalam xanuunkana uu ku sii siyaadaya xasan iyo xuseen buu u wacay waa labadii cinigu awoowaha u ahaa faqabalahumaa wuu dhudhunkaday nebiga ila waa wadaacina waa sagootina way jeclaayeen markuu saa u sujuuday dhabarka ka soo kori jireen rasuulka sala allahu calayhi wasalam mar allaala markuu guriga yimaaday ku soo kala carari jireen maanta waxay ka dambeeyay arki maayaan awoogooda
maanta wixii ka dambeey wuu ka tegaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam. xasan iyo xuseen ayuu u wacay faqabalahumaa, khayr buuna u dardaarmay. wuxuu u wacay dumarkiisa rasuulka sala allahu calayhi wasalam, waa wacdiyey, waa waaniyey. intaa wixii ka dambeeyey xanuunka waa ku sii ziyaaday, waa ku sii kordhayay nebiga. caaisha ayuu ku yidhi, caaishay, alamkan iyo xanuunkan aan dareemaayo waa xanuunkii sumtii Khaybar gabadhii yahuudiyadda ahayd ay nebiga ugu dartay hilibkuu cuni lahaa sala allahu calayhi wasalam. yahuud lacanahu allah, nebi maxamed bay naga sixreen sala allahu calayhi wasalam. nebigay sun siiyeen, suntay siiyeen xanuunkeeda ahaaya sala allahu calayhi wasalam. aadaan u jecelnahay maanta. nebi maxameday naga sixreen, nebi moxamed bay sun siiyeen asagoo Khaybar jooga. waa gabar ka waran raggooda dumarkooda saa yeelaya walaalayaal. dasiga iyo dhibaatada iyo mashaakilka ay ku hayaan muslimiinta. latajidanna ashadda annaasi cadaawatan liladiina aamanuu alyahuud. wax ugu daran ma jiro muslimiinta yahuud buu dhaha ilah subxaana wa tacaala cadaawanimada. sidaa darteed waa dumarkoodii, waa mataqaanaa haweenkoodii, waa naagahoodii waxa saa yeelaya. nebiga intay weydiisay tiri, maxamed ninka la dhahaya nebinimada sheeganaya neefkuu jecel yahay, ariguu jecel yahay, xibintee ka jecel yahay garabka. suntay ku badisay, suntay ugu badisay. waa wakhtigii Khaybar, waa loo soo dhigay, waan sumaysanahay rasuulka allow hayo cunin, laakiin afkuu ku hayay sala allahu calayhi wasalam. waa bidhaanta sunta gashay keliya. nin saxaabi baa cunay, nin saxaabiyaa uga hormaray. marka la soo qabtay, maxaa kugu kalifay? waxaan jeclaabay tiri haddaad beenlow tahay oo aadan nebi ahayn inaan kaa istariixno. haddiise nebi aad tahayna kuma dhibaayaba, waa kaasaa kuma dhibin. khiyaanada iyo caqliga iyo waxyaabay isticmaalayaan. heer waxay gaarsiisan yihiin maanta ayagoo guryahooda jooga, anagoo aqaladeenna ku jirayna maskaxda naga weeraraan. maskaxda adoona qori lagu soo qaadan, saasaa tahay lagu dhihin, islaamka ka bax lagu dhihin, adoo masaajidka ku jira islaamka ka baxsan tahayba. adigoo gurigaaga joogaad fisqi xumaan kasta ku jirtaa. way kareen laakiin waa hurdaynaa, way awoodeen laakiin waa jiifnaa. intaasay sameeyeen. maca daalika waxa saa yeelaya waa yahuud. naxradda ilaa korkooda ha ahaato. waxa sixray oo dhibaatada gaarsiiyey oo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam sunta ugu daray. rasuulku wuxuu yidhi waa cuntii aharkii iyo raadkii suntii aan Khaybar ka cunay sala allahu calayhi wasalam. caaisha u tilmaamaya. intaa ka bacdi rasuulku waa jiifaa sala allahu calayhi wasalam. maraa dushiisa saaran. mar allaala marka uu wejiga uu ku caburmo wuu ka qaadayaa. mar labaad ayuu ku celiyey nacalada ilaahay yahuud iyo nasaare korkooda ha ahaato. ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid. aad buu uga digayaa, shirkiguu diidayaa, waayo qubuurtay shirki ka soo bilaabataa. sideedaba dadkan ashrakada iyo waxyaabaha la caabudayo, wadi, suwaac, yaquud, yacuuq maxay ahaayeen? rijaal saalixiin ah, awliyaal ah. qubuuro unbaa dhibaatadaa keentay. aad buu markaa rasuulka uga digayaa sala allahu calayhi wasalam. maalintaa rasuulku wuxuu yidhi laba diinood yaysan baaqi ku noqonin jasiiradda carabta, yaysan dhicin ee islaamka iyo diinka aad ha loogu hogaamiyo. markii ugu dambaysay ixtidaarkii baa la gaaray. waa gebagebo, waa dhimashadii. ixtidaarkii baa markaa bilowday. caaisha way soo qabatay, nebiga halkaasay ku seexisay radia allaahu tacaala canha. rasuulka xanuuna ahaaya. rasuulka sala allahu calayhi wasalam caaisha dhabteeda ama xabadkeeduu ku jiifa. cabdiraxmaan ibni cawfaa u soo galay, ileen waa la soo buuqbuuqanayey. cabdiraxmaan ibni abibakar sigaar ma watee caday buu wataa radia allahu tacaala canh. mijinjaada ma watee caday buu wataa. cadayga waa wuxuu ilaahay jecel yahay subxaanaه wa tacaala. siwaak afkuu طahiraa, ilaahayna waa raali geliyaa ayuu yihi nebiga salى اllahu calayhi wasalam. wuu soo booqanayaa. dadkana soo booqda wayna sii dhibaan. dadka xanuunka nagu sii booqda cudur bay noo sii keenaan. dadka xanuunka nagu soo booqda mashaakil kaley noo sii wadaan. sigaar baa la cabaya, waa lagu soo booqanaya. tuwaaka la cunaya, waa lagu soo booqanaya. waxaa ka daran macaasidii xumaantii xanta agtaada lagu sheegaayo. saa darteed cabdiraxmaan ibni abibakar waa caaisha walaalkeed, caday buu wataa bay tiri rabbi ah oo qoyan. rasuulka indhuhuu ku taagay sala allahu calayhi wasalam. dabeecaddiisaan aqiinay bay tiri waa caday jeclaa nebiga. markaasaan idhi akhudhu laka ma kaaga soo qaada ya rasuul allah? qaala nacam. ha waa dhihi waa, laakiin madaxoosaa yidhi nebiga. ixtidaaruu ku jiraa, sakaraaduu ku jiraa, waa dhimanoyaa sala allahu calayhi wasalam. ha waa dhihi waaye nebiga. fa ashaara bira'sii ay nacam. waa uga soo qaaday, waa jebiyey, waa calaliyey, waa siiye bay tiri. wallaahi weligiisuu markaa u rumaystay nebiga ooma rumaysan sal alla alayh wasalam.
mastaag ma cadayanin cadayse ka fiican badan maantaasuu cadayday nebiga sal alla alayh wasalam si fiican buu u cadayday cadaya afkiisa ugu dambeeya sala allahu calayhi wasalam jaab baa noogu dambaysa maa walaalayaal xam baa noogu dambaysa xaaraan la cunaa noogu dambaysa qabiil la caayaa noogu dambaysa caday baa ugu dambeeya nebiga afkiisa salawaatu ullahi wasalaamun calayh saasaan uga soo qaaday bay tihi caaisha waan u calaliyey waan u qiibiyey gacantaan markaa ka saaray ragwa koombo biyo ku jira agtiisa taalla nebiga gacantuu geliyey xanuunkaa xoog u haaya wejiguu mariyey sala allahu calayhi wasalam asoo oraadiisu ay tahay laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah ina lilmowti sakaraat gacantuu geliyey mar labaad nebiga sala allahu calayhi wasalam waa ka soo bixiyey wejigiisu mariyey laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah ina lilmowti sakaraat salawaat ullahi wasalaamu calayh allahuma acinnii calaa sakaraati اlmowt wagamaraati اlmowt allahuma acinnii calaa sakaraati اlmowt ilahu sakaraadka geerida iiga kaalmeey ilahu ii maciin ilaahayow ii gargaar kullu nafsin daa'iqaة اlmowt wainamaa tuwafawna ujuurakum ywma اlqiyaama faman zuxzixa can الnaar waudkila اljannata faqad faaz wama alxayaaةu اdunya ilaa mataacu اlguruur wama alxayaaةu اdunya ilaa mataacu اlguruur waxa nebi moxamed ka keenay laa ilaaha ila اllah ina lilmowti lasakaraat waxna sugaaya waay walaalayaal waxna sugaaya waay walaalayaal ama diin ilaahay aan ku camal falno ama islaamka aan hogaamino ama islaamka aan difaacno ama aan noqono ummad khayr badan ama macaasidii adduunka hana laga kari la'yahay xaaladaa labada marba saasay gebagabadu noqonaysaa koomba biyo ku jirtou gacanta rasuulka gelinayey sala allahu calayhi wasalam wamaa cadaa ma gudbin rasuulka inuu cadagii faaruqay ilaa fartiisuu kor u qaaday sala allahu calayhi wasalam fartiisa ayuu kor u taagay rasuulka sala allahu calayhi wasalam indhihiisaa saqafka aaday waa gebagabo bushimooyinkiisaa dhaqdhaqaaqaayey wuu hadlayaa wuxuu damacsan yahay inuu hadlo caaisho way maqli weysee dhegtaan u dhoweeyey bay tidhi waxaan maqlay asagoo odhanaya allaahumma kfir lii waarxamnii waalxiqnii biاrafiiqi اlأclىa ilaahu ii naxariiso ilaahayow ii dembi dhaaf rafiiqa sarana igeey maca الnabiyiina والصidiiqiina والshuhadاء والصaalixiina waxasana ulaa'ika rafiiqa waan gartay bay tihi inuusanna dooranin waan gartay bay tihi nebiga in la khiyaar gelinooyo oo la dhahayo ma ku kaxaynaa mase waad joogaysaa rasuulka allow haye ma baxaysaa aakhire maad aadaysaa mase intaad joogaysaa bal irafiiqi اlأclىa iga wada meesha rafiiqa sare igeeya idan laa yakhtaarunaa nebigana ma dooranin bay tihi caaisha radia allahu canha muxuu ka doortaa ilaahay agtiisa waxa yaallaa u khayr badan subxaana wa tacaala markaa markay arrintu maraysa nebiga uu yidhi allaahuma kfir lii waarxamnii waalxiqnii biاrafiiqi اlأclىa wamaalat yadahu gacantiisii kor jirtay way soo iilatay rasuulku wuxuu la kulmay ilaahay iyo baari'iisii waxaa ka baxday nafsadii rasuulka walaxiqa biاrafiiqi اlأclىa inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun inaa lilah wainaa ilayhi raajicuun qofkaysa musiibo ku dhicin adduunka oo weligii dhib aan la gaarsiin musiibo geerida nebigaa kaaga filan sala allahu calayhi wasalam nebiga geeridiisaa markaa ku filan waxay ahayd barqan maalin isniin ah 12-kii bishii rabiicu اlأwal 11-kii hijriyada sanadka marka la fiiriyo waa sidaa qaalibkee markaa la leeyahay imisuu jiray 63 sano salawaat ullaahi wasalaamu calayh 63 sano ayuu rasuulku ku dhintay intaa wixii ka dambeeyey islaamku ee muslimiintii dahshi baa ku dhacay nebi ku dhex dhintay maysan arki jirin see loo aasaa see loo dhaqaa cumar waaba hadli waayey ninkii xooga badnaa shayطaanka jidkuu mari jid kale mari jiray lugihiisa dhulkayba ku dhaceenba radia allahu tacaala canhu seefuu soo qaatay wallahi qofkii dhaa nebi maxamed baa dhintay qoortanka goynaa buu dhahay caryaa dhigi kar nebi maxamed baa dhintay wallahuusan naga dhimanin waa baxay waana noo soo noqon doonaa mana dhimanaayo ilaa munaafiqiinta lugaa iyo qoora uu ka googooyo wayna dhibeen muslimiinta dhexdooda dhibeene ilaa uu baabi'iyo wuu baxay sida nebi muuse uu baxay oo kale waana noo soo noqon doonaa
abubakar baa yimid markaasaa la dhahay fadhiiso cumar waa diiday abubakar nebiga labadiisa indhood inta u dhaxaysuu ka dhunkaday udug badnaa buu yidhi xayan wamaytan maxaa ka caraf badan rasuulka sala allahu calayhi wasalam ilaahay geeridii uu kugu talagalay wuu ku dhadhansiiyey laba geerina ma dhadhaminaysid wuu soo baxay abubakar wamaa muxammadun ilaa rasuul qad qalad min qablihi الrusul afa in maata wqutila انqalabtum calى acqaabikum waman yanqalib calى caqibayhi falan yadur allaha shay-an buu u akhriyey ummaddii way fahmeen cumarna waa laga kala yaacay rasuulka salى اllahu calayhi wasalam aasitaankiisii iyo jihaaskiisii iyo wakhtigaa nagu dhammaaday laakiin ilaa xaqa waxaan ka baryayaa inuu xaqanana waafajiyo musiibada dhibaatada badan ee nagu dhacday ee ah geerida nebiga sala allahu calayh wasalam inuu ajir naga siiyo mar labaad iyo mar saddexaad iyo ka badan baan dhahaynaa inna lilah wa inna ilayhi raajicuuna sala allahu calayhi wasalam waxaan ka baryaynaa ilaahay wejigiisa shariifka ah kuwa la kulma maalinta qiyaama inuu ilaahay naga dhigo gacantiisa qiimaha badan inuu nagu waraabiyo darkiisa kawtar baan ilaahay ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala waxaan kala weydiisana wixii dhibaataa in ilaahay naga rafaco inta xanuunsan ilaahay caafimaad taama inuu siiyo inta dhibaataysan dhibka allah ka qaado inta murugaysan murugta allah ka qaado inta dhibaatii kurbahaysana allah kurbada ka faydo dhammaantaynsaan masjidkan khayrka ugu kulannay ilaahay jannooyinkiisa firdowsa naciima ee meelaha lamidka ilahay ha nagu kulmiyo allahuma aamiin allahuma aamiin allahuma aamiin